تكي يوري مليون اسكو دوبن عاو أرمها أنا عاو هينو شعب وحيلين محاكم ذا أرمها عاو وحكم ذا عاصمة السوماليلاند مقالة هرقيسة وعاو قريتي سبب تايقو قريتي وحكم ذا مصبيحي مركي وكاني سبب دفتبحي كالور دارين قدومي النماذي ودمعي إنو كوالاتشيو نين هذاكية وحكرو أن يهينا سيدا درس عطانبا وسيدي سيلايو حسبك كل مية ولوليني أصاب قري مالو بأمري أيو دمعي عاوة إنو برنا حيحيلو وبرنا حيلك كوريتي دفتبحي سبب حيلكي هين إنتانا وركا كادو لعين وحاقوريتي دورام وريمالي موسى وحيسوركي الله أرض dhammaan bahweynta page-kayga ku xiran waad salaamantihiin waxaanu idin haynaa warar aad u fara badan oo ay ka mid yihiin maalmaha soo socda aanu idin soo sheegi doona hadii ilaahay idmo wasiirada iyo xilalka uu soo magacaabi doono madaxweynaha cusub ee dalka Somaliland hase yeeshee taa intaanan u gudagelin waanu idin soo marin doona iyada baritoole hadii ilaahay idinka ay ku noqoto hadda waxaa jira warar aanu ka helayno caasimada dalka Somaliland ee Hargeysa ayaa sheegaya in ay isku dhacaan ragii u ololeynayay iyo Muuse Biixi taasina aanay ahayn wax dhagaha dadka yaqaan Muuse Biixi ku cusbaan doona waxa uu sameeyay gudoomiyanimadii ay ku ballanto ahayd in uu ku wareejiyo Maxamed Kaahin ayaa waxa uu ku wareejiyay Cabdi Samaale oo ina adeerkii ahaa taasina waa wax cadaalad ka fog waxaana ka iman doona isku dhac haddaba ma la is oran karaa captain halka waxa ku burburi doona waxa loo yaqaano jeegaanta maryo sidaad la socotaba way ku burburtay jeegaantii xaalada ayay burburtayba waxa xaalada burburiyay markii uu la damacsanaa inuu ku wareejiyo gudoomiyenimada xisbiga Maxamed Kaahin ayuu xaaladto u yeeray adeerkii Cabdi Samaale wuxuu ku yiri gudoomiyenimada xisbiga adiga iskale doorka dambe kula tartan gudoomiyenimo caadiyana ma aha oo gudoomiyenimo waraaba taagan marka waxa la soo ran karaa reerihii ku heshiiyay marba mid gudoomiyenimada lagu wareejiyo inuu halka Muuse Biixi uu kaga dhacay meel uu kaga dhacay markaana la keeni doono sababo madaxa reeruhu isla galaan taana wixii ka soo kordha waynu arki doonaa laakiin ma okay captain waa mahadsan tahay waxaan rabaa su'aal kale aan ku weydiiyo oo iyaduna isla taa ku saabsan sidaad ogtihiin waxa uu ololeynayay Muuse Biixi rag aad u fara badan oo ay ka mid ahaayeen Cali Marixaan ina xaashi Xuseen Cabdi Ducaale xalay abaarafiidnimadii waxa dhacday isku dhac wasiiradii Siilaanyo iyo Muuse Biixi oo u sheegay in ay iscasilaan ragaasi gabi ahaantoodba isagoo ujeedkiisu uu yahay in uu soo magacaabo wasiiro cusub oo isagu u wato haddaba arintaasi sida ayay u arkaan shacabka dalka ku dhaqan iyagoo imanka maryo sida la socotaba xaalado horay u sheegno waxa isku dhac ka yimi iyaguna wasiirada Muuse Biixi waxa uu soo magacaabay ama uu hoosta ka qortay ilaa gudoomiye ku xigeen ilaa agaasimaha hay'adda ilaa wasiir caafimaad wax kasta xaalad uu qortay Muuse Biixi uu diyaarsaday marka durtaba shaqo xilkii loo dhaarin ayuu damcay wixii uu damacsanaa oo ahaa kaliitalis haddaba xaaladto maryun gacantu baynaysan Maxamed Xaashi sida la sheegay xaaladto askartu way xiri gaadhay Maxamed Xaashi markuu yiri xilku ma hayaadiga waxa kale oo ku haya Cali Marixaan oo isaguna telefoonka ku taabtay sida Muuse Biixi markuu ku yiri igala waxaad ugu hadlaysid ما هي سيد أنا حلبة حوينها حل كي جبتي حاجة ما ذوق ذيجو واحد كلام كوها يا وسير كحسين عبد العالي ويسوقنا لا شيء جاي يسكول عن حالته هذا ما حل صار كرا وسير هذا الجيل ينحل كيسك عسيله ويحيل دونا شو كلام كعي دونا بتصير يقول دي دونا ما تلاش وين بكو حرين دونا ما يوصل أدرس عطبة موسى وكري تلس ما أقول حكومة دي شهيد يسمونه يعيش كلامي كتلسه ما يبحث طبعا حتى ما وحنا نصوّدنا إن بريتشولة الليسكي وهرجي إن مدحوين السيلانية وصود دياري وزيرة ومقعد الدونة وزيرة كحجين كا مارياش ودن كا يكوا واللي بهاي هذا تاسنا وحنا كهاد الدونة إن بريتولة أيام ضدك أصلا بندق الدونة لما وزيرة دي ومقعبة أما وتركوب كقصة مستي وديار صدق يوحى أي كليين يقبل لدود لما أنت بري أيام الدين شدين لما لا صعد ورك يجا ظهر نما بريتولة مركب كوا يعني
waxa uu sii magacaabay imika dadka u sheegmayno 26 agaasimayaal iyo hadday tahay iyo sida aan warbixinta ku helay iyo wixii warare kala caawin ugu soo kordha waxaan jira 26 wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo agaasimayaal iyo hay'adaha ayaa uu xinta liiska ku qortay Muuse kamida waxa kale uu caawisiyo soo qoran doona rag ka fara inta ka sii fara badan marka berito ayuu u soo yeelay hore uu yahay iyo halka uu ka soo jeedo iyo sida xilka uu Muuse ugu qortay uu doonayay uu barto ayaamahan gudahooda soo uu magacaabo laakiin ka hor dhicmayno berito haddii uu ka dhigo Somaliland ni sheegtay waa in salaameena dhamaantiinba waani iyo wariye Somaliland oo isku duuban